dagaalka ka soo cusboonaaday dhinaca iyo dalkaasi Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in uu cirka isku sii shareeray. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeedii ay isaga baxeen magaalada Kobo ee waqooyiga gobolka Amxaarada si ay u xakameeyaan khasaaro badan oo ka dhaca magaalada, iyadoo ay sii kordhayaan iskorimaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega. Bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta dowladda Ethiopia ayaa Sabtidii waxaa lagu eedeeyay in ciidamada Tigray ay magaalada ku soo qaadeen weeraro iyagoo ka soo galay jihooyin badan. Magaalada ayaa ku taal meel u dhow goobihii uu dagaalka ka soo cusboonaaday horaantii toddobaadkii lasoo dhaafay. Weli ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay ciidamada Tigreega. Hase yeeshee dadka magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay u qaxayaan tuulooyinka magaalada u dhow iyagoo lugeynaya, kadibna ay joogsadeen adeegyadii gaadiidka sababo la xiriira dagaalada soo cusboonaaday. Dhakhaatiirta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku dhinteen 4 qof. Xogaga Tigreega ayaa ku eedeeyay ciidamada Ethiopia in ay weeraradaasi ay fuliyeen. Labada dhinac ayuu midba midka kale ku eedeeyay horinta iskahorimaadkan cusub, kaas oo jugtiisa laga maqlayo magaalada Kobo ee u dhow xuduudda Tigray ee gobolka Amxaarada. Mid ka mid ah haweenka degan Kobo ayaa BBC-da la hadashay. Waxa ay tiri, dagaalka waxa uu noo jiraa qiyaastii 20 kilomitir. Waxaan maqlaynaa dhawaqa hubka culus. Weli waa la maqli karaa. Dagaalka wuu sii weynaaday. Ciidamo dheeraad ah ayaa soo galaya aaga. Kooxda TPLF Getting Ready waxa uu maalintii Isniinta bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dowladda dhexe Ethiopia ay ciidamo badan ay soo dhoobtay xadka Tigray. Xilli kasta wuu burburi karaa heshiiska xabajoojinta ee gargaarka bini'aadanimada qaadana amaba looga gol lahaa. Haddii TPLF dagaal lagu soo qaadana, waxay ciidamadeedu diyaar u yihiin in ay weerar kasta iska caabiyaan, ayuu yidhi ninkaasi. Xukuumaddu waxa kale oo ay sheegtay in mar kale haddii uu qarxo dagaalka Tigray inay ugu wacan tahay fallaagada oo in muddaha diyaargarow dagaal sameynayay. Dowladda Ethiopia ayaa dabayaaqadii bishii Maars ee sanadkan ku dhawaaqday xabajoojin bini'aadanimo kadib ku dhawaad 2 sannadood oo ay dagaal kula jirtay ciidamada ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigray. Eedda labada dhinac ay isku jeedinayaan ayaa muujinaysa inuu dagaal horle ka qarxay xadka gobolka Tigray. Colaadan oo bishii November ee sanadkii 2020 ka bilaabatay gobolkaasi Tigreega ayaa sababtay dhimashada 10,000 oo qof oo rayid ah iyo in malaayiin qof ah ay u baahdaan gargaar bini'aadanimo. Waxaana gobolka ka maqan adeegyadii asaasiga ahaa sida korontada, isgaarsiinta iyo bangiyada. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya Tigreega iyo xukuumadda Abiy Ahmed? Tan iyo inta uu dalkaasi Ethiopia majaraha u qabtay Abiy Ahmed waxaa soo taagnayd khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay isaga iyo mas'uuliyiinta sarsare ee deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF. TPLF waa xisbi ay leeyihiin qowmiyadda Tigreeda oo ka mid ah 4 xisbi ee ku bahoobay xisbiga PP oo horey loo oran jiray EPRDF. waxaana TPLF lagu xusuustaa inay talada dalka Ethiopia ay soo hayeen ku dhawaad 26 sano. Hogaamiyaha xisbigaasi TPLF waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore dalka Ethiopia ee geeriyooday Meles Zenawi. Xisbiga Tigreega iyo TPLF wuxuu soo bilowday ama waxa ay soo bilaabeen markii ra'iisul wasaaraha ka soo jeeda ee qowmiyadda Tigreega loo doortay gudoomiyaha xisbiga EPRDF uu noqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Abiy Ahmed markii xilka loo dhaariyay tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu qaaday waxa ka mid ahaa in uu magacaabis siyaasadeed uu sii daayo, cadaadiska shacabka lagu hayay la joojiyo, mucaaradka gudaha iyo dibadda ka dhaqdhaqaaqayay oo uu cafis u fidiyay kadib uu heshiis la galay iyo siyaasadda dalka inuu furfuro. Tallaabooyinkaasi oo dhan ayay biyo kaba dhimcaan waxa ay u noqdeen in uu ku guuleysto Nobel Peace Prize-ka. Xisbigaasi TPLF iyo dadka ka soo jeeda deegaanada Tigreega intaba sababahan soo socda ma aysan qaadan. Heshiiskii Eritrea uu la galay oo lagu soo afjaray colaadii muddada dheer u dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea
ay u arkayeen in ay qowmiyadda Tigreega ku tahay halis siyaasadeed maadaama ay colaadda Addis Ababa iyo Asmara ay iyagu abuureen. xisbiyada siyaasadeed qaar oo ay u arkaan in ay yihiin argagixiso oo ay mudneen in heshiis lala galo. sii deynta magacaabis siyaasadeed oo ay u arkeen in ay madaxii Tigreega ee siyaasiyiintaasi badankoodii gacantooda ku xiray inay colaad ay abuurayaan. mideynta xisbiyada dalka Abiy Ahmed tallaabooyinka siyaasadeed ee uu qaaday waxaa ka mid ah xisbiga talada dalkaasi Ethiopia hayay EPRDF oo uu ka koobnaa qowmiyadaha 4 qowmiyadood ee Oromada, Amxaarada, Tigreega iyo shucuubta koonfureed in uu ballaariyo oo uu ka dhigo xisbi qaran oo ay qowmiyadaha dalka oo dhan ay iska dhex arki karaan. wuxuuna diyaariyey nidaam siyaasadeed oo suurtagelin karay qowmiyadaha Soomaalida, Cafarta, Gambela, Benishangul iyo Harari ay ku biiraan xisbiga cusub ee heer qaran ee BB. xisbiga Tigreega waxa uu tallaabadaasi uu ku tilmaamay mid ka hor imaanayso mabaadi'dii asaasiga ah ee u yeelay xisbiga hogaamiyaha dalka Ethiopia. mideynta xisbiyadana ay ka hor imaanayso nidaamka federalismka waddankaasi. Abiy Ahmed oo aanan u joojinin diidmada ka yimid xisbiga TPLF waxa uu meelmariyey mideynta 9 xisbi ee ka ariminaysay 9 deegaan ee dalkaasi Ethiopia oo ay Soomaalidu ay ka mid ahaayeen.